yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal مسؤوليتي وحلقة سكالي لما مرون برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله أبو قبن كان مهران أيو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي مسؤوليتي وحلقة كان مهران أيو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي نكي مامولا هنتدا مالكوينكا هرمكي مارين تدبود للربي مشاريع لابو ديسو شعبيقو عدانا ميلكالي لمارا أيها مسوق ماسوق قالي نكي مامولا هنتدا مالكوي بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن dhageystayaal idilhaantiin baa meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ah oo aynu kaga hadlaynay dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga fogaan karo wuxuu musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii waa 18 bisha 6 sanada 2015 dhageystayaal maalin axada haddaba barnaamijka intiisa badan waxaynu kaga hadli doonaa dhibaatada musuq maasuq uu leeyahay iyo sida looga hortagi karo sidaa daraadeed dhageystayaasha barnaamijka qaybta hore waxay ku maqli doonaan sheekadii musuq maasuq ka hadlaysay kadibna waxaynu barnaamijka markaa nagala qaybgeli doonaa mid ka mid ah mas-uuliyiinta dhanka martida barnaamijka inoogu ah iyadoo ay xigi doonaan qaybaha xiga ee su-aal weydiinta dhegeystayaasha dhanka sheekada haddii dhegeysta aad sheekada la socoto oo aad dhegeysato oo aad ka jawaabto su-aalaha waxaad ku guuleysan doontaa abaalmarin ilaa iyo 5 dhegeysta ayaa la abaalmarin doonaa abaalmarintuna waxay noqon doontaa lacaga kaash oo dhegeystayaashu markaas ay qaadan doonaan waa haddii ay dhegeystayaashu ka jawaabaan 3 su-aal ee sheekada laga weydiin doono sidaa daraadeed barnaamijku waa barnaamijkii gaarka oo kaga hadlaynay arrimaha musuq maasuqa hay-adda markhaati ayaa barnaamijka taabagelinaysa idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaa baahinaysa waxaa farsamada inoo jooga cabdicaiis daahir cali sow barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdicaiis cabdulaahi maxamed riyali balse marka hore sheekada ayaynu soo gudbinaynaa haddaba dhegeysta dhuux oo la soco kadibna ka jawaab su-aalaha oo abaalmarin ku qaado waxay ka dhex imanayaan su-aalaha sheekadan iminka ayaynu soo gudbin doona dhegeysi guddoon wacan musuq maasuq yahay siyaad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal كان مهران أيو وضها إحلو بدعو أيو مسوق ماسوق يا هاي مسؤوليتي وحلقة سكالي لما مرون برشاد الله كلام مرون مني ما وحب الله أبو قوان كان
mahuraanayo wadaha ehlo budco ayo musuqmaasuq yahay inaan baxaa horta oo taliyay maalin dadku soo amray wuxuu dhahay xaafadan kulli dadka joogo lacagta ka soo ururinaysa waxaadna uga sheekeynaysaa dadka lacagta laga qaado in lagu dhisayo xaafadaha meelaha burbursan oo roobka markuu dabiyaha ay soo marayaan gurigan ugu horeeya inaan horta ka bilaabo horta oo aan tagaa askartana way la socotaa ninkii warkayga diidana xabskan hor u sii wadaa waa xirawa maanta war ma bajiro marar badan dad badan way ii booteen maano salaamu calaykum wa calaykum asalaam xaaladaada ka waran waa fiicana maxaa waa carrada ka maamulka degmada waayay waxa laga rabaa amarka lagu siiyo inaad hoggaansato kow waxa la masaari karto wixii lagu dhaw waa inaad dhahdaa ha sida anaga amarkiina ugu hoggaansamaysan anaga amarkiina ugu hoggaansamayna mid baan ku sheegayaa marka taliyban wada kulnay oo degmadan adi asaako waan gar wuxuu ii soo xil saaray marka xaafadan dadka degan inaad u tagto roobkii cabasho laga muujiyaa la maalin walba way soo laabatay maxaa marka aniga ugu imaaday waxa kugu imaaday arinta ah in dadka xaafada kulli guri walba ku yaala xaafadan lacag baa la soo sheegay nin walba u tagaya haween iyo rag wixii guri iga soo horbaxo waan la hadlayaa lacagta laga qaaday baan u sheegayaa lacagtaas dii waayna waxa la ii soo qadan qadi salig ii keena la marka lacagtaasna waxa way lacag xaafada lagu dhisay maahane anaga ma qaadaneyno marka waa in lacagtaasi bixisaa adigoona muru igin shaqo badan ii taalo meeqa u baahanta والله نيو لعقتها وباهناي وحاواي $100 واي وحافظ لي wax lagu qabro $100 boqol wadada lagu dhisay Soomaaliya wadada lagu dhisay ma arki karo wadadaan oo qashin daadsan oo dhiiqad degan ma arki karo hada arkan adiga u qoolan okay waa diyaar boqolka diyaar waa ka haya ma salaam waa inaan baxaa السلام عليكم يا واي وعيدمده ونبدقليده ودقمده هي سوقل هي حالتها ka waran waa fiicanahay ما شاء الله الحمد لله wanaagsantahay hay maxaa soo kordhay dacwo jirta niyo taliyaha horta soo amray haye wuxuu nagu soo amray dadka xaafadda degan caawasho soo gudbiyeen caawashadaas oo ah maamulka degmada in waaxdan xaafadan ku tahay inuu wax ka qabto haye arintaasina waad ka waraysaa adiga markuu biyaha imaado in wadada biyaha ay burburinayaan baabuurta inuu burbursan yahay baabuurta meelaha soo martaan waa u leeyahay jidkiinu jajabsan yahay asagoo ay walba macnaha bacaadka ahaadna bacaadkiisa jajabay soo burburay macnaha meel mar uu leeyahay arintaas cid wax noo qabatay cid wax noo qabato u baahanna marka waxa la rabaa dadka xaafadda anartina aniga isgarabsano anagoon isgarabsano wax ma qabsan karna gacmooda jirin wax go'een Allah subhanahu waana la soo diray maanta cid walba xaafadan degan lacag aan ku urinada wiilkan diriska maxaa loo baahan yahay hadda $100 loo baahan yahay $100 maxaa loo qabanaya $100 waxa lagu dhisaa wadooyinka burbursan lagu dhisaa wadooyinka burbursan waa ma santaa arakaawo iyo wax walba lagu soo dijiyaa waa tahay $100 lacag waa tana isii boonada isii okay بريان سو مرة إن شاء الله تعالى بقول دور مكان وكايا مع السلامة أيوة ما سنت خير نسكوبنا وأنا سيسعنا السلام عليكم عليكم السلام وايو وما ملك الدقمة عيدا يسودرين واي هاي سوقدت هاي حال دينك ورما وفي عنا سيتين والله وكوفي عنها ما شاء الله حدوني صاي وحال قاعد يا ماما إن أرتا وما قش عمل ذلك حافظ العكس يرورنيان أرتا ورك قاعد يودك حافظ وحكم يمسن ciidanka nabadgelyada warkooda dadka xaafadda iga daacday ilaa hadal maxaa raadinaysa oo iga rabtay waxaan u soo baxay maamulka degmada ay soo diray sababta loo soo dirana waxa waayay caawashada xaafadda soo korortay maalin walba guriga biyo dardareen waa ognahay in guriga biyo qariyano guriga oo hoos maro biyo kor mareen maxaa la qabanayaa marka waxa la qabanayaa lahay si dadka ay u qeeli jireen hay'adaha wax qabanaysa isaana wax qabanayso markii dambe maamulka degmada go'aan ay wada qaateen waxa lagu wadishiyay in xaafaddi guri walba xaafadan ku yaalo in laga qaado gaaraysa ilaa ay $100 ayaan lagu dhisayaa wadooyinka xaafadda burbursan lacagtaasina hadda way ka soo dhalaysaa qoyskii dhii waayna waxa aniga hadda haweeney horta hanjabaadii waxaas iska daa dadka waxay isku jiraan danyar iyo dad wax haysta dadka danyartaan u naxariista dadka wax haystaan si u haayaan uga qaada waxa la canjeero si u kala koreysa loo kala qaada aniga iska dhaaf adiga 100 200 300 waa dhiibaya laakiin dadka danyartaa hal ogaado wala ogaana adiga ka dam maxaa dhiibi kartaa adiga aniga boqolkii diyaarka aad dalbatay waan dhiibaya hadii wax loo baahdan oo ay iimaanaysa gaariyaasha carrada daaraba aniga amraayo keenay wadada aan dhistaan diyaar u nahay kaliya wada shaqeynta wala rabaa $100 boqolkaaga qabso hooyo okay $100 waa hawlgal marka shaqo wanaagsan aan ka rabnaa dadka xaafadda ma sha Allah xaafadda waa xaafad ma sha Allah iska $100 haye 300 aan hayaa lacagti ma soo ururisay ha taliye lacag badan aan hayaa waan soo ururiyay lacagta aad u fara badan tahay ugu soo ururiyay lacagta كان العكس لك العكسان والله
maxay lacagta reebanaysan maxay tahay wax aan reebto mala wax yar oo waxa waay di qoraxda markay inta aan soo shaqeynayo wax yar bis ma badnabo mana qorax joogaaga waay qorax joogi leen ka reebtaa wax kale ma ka reeban iska reebo haye waxaan ka rabaa haye shaqadan adaa bilaabay haye anaan dhameystirayo waan gartay wadada waxa u qorshaysay lacag galaysa 40,000 miya waa sida 40,000 soo loo gelina wadada maalinta adiga wadada adiga u burbursan dadka xaafadana lacag laga soo ururiyay 500,000 galayso wadadan 500 bisa darbiyada la jabiyay guryahan madaaficda hore ugu dhacday la qoday boorkan qashimada meelaha lagu daadinayo ku shubaysa wax yar oo cariguda kor ka saaraysa wala la garaaca kadib hadii muranka imaad garan boor waxay tahay jaygan adal tumxiya jaygan ma adal tumxiya maartay dadka si wanaagsan loo shaqeynaa si wanaagsan u shaqeeyo Soomaaliya wax joog noo qaadanay wax joog ga reebanay aniga teedka fikir ma isna okay hada adiga wax joog leedahay anina qabowsado waay bant $500 meeshan geliso ka badan ma ku bixinayno $500 waxa soo raacayso nimankaas gaadiidka wada gaadiidka carrada iyo qashinkan qaadayo dawladda askare haye waanu la amraya haye kaliya $500 ayada waxa u dhigaysaa biyo shaasha u dhigaysaa waan gartay hadii wax dheeraad ay yimaadaan waa kaasa dirina markay hoosha dhamaato halka arko giant kor looga daadiyo waan idaacadaha wacno kaamera laga duubo alle bal ay wadadii انف isbuuc kadib biyaha dumiya deermaan tukal arurina waa mar walba sidaa waaya waa shaqada hal mar iska bedelo shaqada socoto shaqa ma taqaan shaqa mar iska bedelo inuu inta tahay taliye dadka lacagta ka soo qaatan kara dadka lacagta ka soo qaaday boqol maxaa u tiri dadka maxaa liibi ka qof kale yiraahdaa dad wadaniina ku jira shamol liibay waa arkaytaa laakiin waxa la dhaaday boqolkan baxsanna kadib wixii soo korno soo laabaalina hadda toddobaadka dambe xitaa aan tago malayn mar labaad oo aan lacag kale ka soo qaadabo ma qof aan noqon ceeb waay qofka hal marna lacagta ka qaado waa si kale lagu fahmaa tan kale boonooyinkan wixii ka soo haray iyo kuwa aaja darsiidkooda soo wareegay waa diyaar waay wax aan ka reebanayo ma jirto laakiin wax dhintay hadaa soo kala qabeeyay boon u jar kuma dhihine adaa boono jaree wax dhintay baa taa boonada waa marqaati laakiin qof ururaysan dabagelaysa ma leh mar dambe boonaha isku jarin haye warqada ka saxiix oo kaliya qofka ma salaamo carradii aan ku diray taliye carradii aan ku diray مدارس وهذا واكن عرض واكن وباورتي وحده واكن قشنك جاي واحد جباي من كوسمرس وحده الحمد لله لقد ولا وحده وارتاي ان waxaan dad laga soo aruuriyay waxa dad masaakiin laga soo aruuriyay waxa adiga aad u sameeysto waa aqradaada iyo dalkaaga sax waa wadaniya tahay 100,000 lacag qaado horwaay waa hagaagtay taliye Soomaalidu wadaniin waa ونيو نكان حتى شخلي أدرت اسمه كوب كلا توربه بابور ترى سوي دنيا وحريسة كليه بسم الله أنا شقاء إيدي تو إيه حسبت وكسر ما يقع شقاء حلو صارت ما يقع بحرمتك أفرت كل حسابينيش ماما وحي مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري مع العين مو قدوري مسوق عوني مو قدوري ما تسيرا من جينا صعب فيسيا وسوق تبركينا يا شعينا مرمارينا يا مريت يا ضمن كديغن اسمه قال هو بدعن اسمه قال هو بدعن ماما وحي مع العين مو قدوري nimankan sheekadu ma bagin wadada waxaan loogu shubay rabaa jaay lagu shubay kadibna roob markuu imaado dhiiqa fadhiisanayso lacag kale la iska rabaa boor kaliya hadana inta xaafad iyo wadada aagoonaysaaba dharka soo gashay hadda ka halaabaan waxaan wax la iska yeelay ma inaad dabagal ku sameeyo waa dadka xaafada dhan inaad isku soo bixiyo waa nimankan aan ceebeeyo dharka aan ka dhigo dadka hortooda waa yaabe carrada meesha lagu soo way maxaa way baabuurka carrada wada maxaa laami markay qaadanaysaaba boor samkii waaba maanta laamiga tii laga soo xaqimeysan tan mid la soo gada xataa ma carrada meel laga keenay maba arkin ba macna tii laamida laga soo xaqaqa waa maleen ayana madow kaliya bismillaah maxay taasaan ifaan anaga odayaasha xaafada inaan u tagno waaye degmada cunuga xumaa lacagta urunay aan qoorta ka soo warka dhana ku sheega jooji baaburka uu gadin carrada jooji baaway jooji ha gadin baabur ha gadin ma gadin kartid yaa ku amrina meeshan carab ku shubto
يا كو أمر عرنا كسبت مثلا هقدين من أيها كاتجيبين اللي هقدك أدا قد سعران هقدين نرجع دات وكاس عرقدي لبعتها كنت ما واحد أول اسكت قانا ما هو هقدين عرها كو أمري كان أنت كو أمرها إمال أيوة تليها وتقدمها تقدليها أنا قمت تجينا ساعة مانايو حتى أبوك المسكتين يا جورجي شغله تلي نمنا إمالي وحافظان كترسل أو لا محاوى قارية أديك دجلس عرض ماشي لو قلت لك أنا كشوف عليه عرض اللامي ماشي تكشوف إيده هذه وشوف سيدي لو بحنا وشخينا عليه نمنا أنت إمالي وحدان سن كده جلس عرضان ونبضن سكبح نمنك وصار كنا نمنك ونيه نمنك حافظ بوقي مكانني وابو الحين أنا ودي بوقي بدي قارية صورة صوت قارية خلاص نودي أبي نيو نودي قد عرض قد جوجي مشان بشقد ولا ولا قد عرض هقدين عرض هقدين وروح فقط انت واحد فقط نحبطها ورقفك واحد فقط ورشاك كشنا والله إلك يا شاتيا كلا ربوا وايبا متى واحد عيسوا أسجى واحد الرادين يبا معكم مغلا ما أكتهين شرعي وحى أو كقبو شرعي وحى أو كقبو الله وقف هرسا شرعي وحى أو كقبو حول قاتل الله شرعي وحى أو كقبو موتي حال مصباح حوله أتقادين إلى العكس عادك كقادين إلى العكس مجالات كقادين يعرض لامي قاعدين صوب قربسين أنا بور ما إيكن تسيج ما إيكن وابو جدي واب عرفتها مع عرض مذوبة عرض حق إيكن عرض حق لقى هلا إيش ماشي كتم هذا إيش عرض لبعض نن قيلنيس قريو دورتو حقا جاي كش جاي كدم بينه وحن جاي عرض عيشو نقاد بور نقد شيء ولا عينا أمر كنا كشقينا علي لبعض قريو جاي وشو وابو مرم بدينا أنت كان عرض غشك لا قيل ما ينتهي وابو كودينا بي قيلي على قطع أوكي كشوف أنت إسلام مش ساين بحياتك مثلا هذا البادي إسلام هذا الذي هذا الكسي جانس كذي وهوري ورياضة أدوك إلهي وحليلي أسحانها فارن شرمكو إمادة يا أسحانه فشي بل قولي جاي هرتيسة نمن كان عيدك إسكوشي عيدك كان ركان درد أوته waxay ku shibaan wariyayro canuga madawaan halla wariyaa maalintii ku sheegay 300 diilay ka 500 diilay wadaniyaha waa dhiibaya nimankan ma taqaanso kuma dhiin walaalay macaanto waxaan ciiday ku kareeyna macaanto oo laamiga laga soo xaqal ugu soo sheegay war guriga burburo madfac la ciidoodii wadaan war walaalay aniga wadankaanay oo dhashay waxaan isleeyahay wadankaaga wax u tar waxna u qabo wax inta haysatid kana kala joogo kala taasxaanu falay kullu goynay kana kala joogo imid kala ku shiiway carrada adika ku shiiway oo soo adeejiya joogo kulluminaay midaa jirta carrada hadda iga qaadi waayaan saldhiga weyn ee laga amro ciidanka aan jasna aadaya wixii ka dhacan ayaga korkooda noqonaysa oo san ciidan waxay raadinayaan inay maalin walba lacag ay aruuriyaan tarraabka hore markuu imaado qaadaya degmadan dadka degan lacagta isku daraan dabaqyo dhista iska aflaamiyo jay kalaami caadi oo aan saari karnaa laakiin way inay naga qaadan qashka hadday naga qaadan wixii dhaco annaka ma dhigin hay ma xarabtiin markaa waxaan sameeyay qurunka duurkan kaaseen war qashin markaa keenaysid carro lacag baa qaaday ma daacad ugu shaqeyso keentid carro nadiif ah filin dollar xafadan ka aruuriseen diyaar waxa oo inaan ka shaqo geesana maxaa dhimatay cudur laga qaadayo noo keenaysid xukuumadda kama cabsanaysid فقيرة كقادين ضد دنيا كقادين بيلكودي كقادتين. واسفهني عرضان يوحنا والله بينا لكن إنك ربوق يدعوه هذا ريننا. ما هو والله بينا وأنا كلي أنا هبين اسمه لا ما خلاص. لما أنا ويقيلنا يعني أنا لا هبين يقولوا جاي كشوف. أنا جو حاربنا دقمة أو دن شيء إنا كود شفت. رجع أنت في رسالة كلية منين أنك إلا أنا دكت الشعب كان كشقينا أنا وإنا حافظنا دن كشفتان جايجا دي هذا كشوفين زمان. لا يا أنا نسيت. فيري جايجا حافظنا كلية كشوفة بحيتها كون حق مرها مياه أيجا وأديك عرض. تكرر. وفقنا كلية كشوفة أنا جاي هاي كشوفين هذا كشوفين هالكاسنا. بعد ما ورنيه إنا عيبون مقتى أو حال روب أي أو جزء كذا قش نقضي هي ومخلي لامي أي تمن عرضنا لامي تمن وابو سوق خلطة سوق هذا مياه هني كذا أول بقى عرق وقشن وفرنا جزء مقتى كرتوني بقى كم قشوا ماشي حصل لك شيء لامي صوب تكون الجليل وماشي هذا وش بقول على الجليل هذي ده كان دعوة نحن كنا دقمنا كويننا هي هذا محقق الأمريكان إني أبى بدي هترجع وشقيك كنت إني أبى بدي هترجع
وهجاك haddaba qaybta dhanka musuqmaasuqa waxaynu markaa su'aal weydiin doonaa oo maalmihii ugu dambeeyayba hadalhayn ballaaran ay ka taagneed dhanka ahlu sunna ee maamul samaynta gobolada dhexe ayadoo ay jiraan dadaallo ahlu sunna maamul 3 gobol ah amba 2 gobol iyo bar ah ay sameynayaan taasi oo ka kooban qaybo kamid ah mudug iyo galgaduud iyo gobolka hiiraan oo la israacsiinayo sidaa daraadeed maxamed xuseen owliyo oo ka tirsan culmadiinka ahlu sunna ayaa waxa uu sheegay in isaga uu aad ula yaaban yahay faragelinta gobolada dhexe dowladda Soomaaliya ay ku sameynayso waxa uu dhaliil soo jeediyay dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha isagoo ku tilmaamay in waxa halkaasi ka socda gobolada dhexe maamulka loogu sameeyay yihiin wax musuqmaasuqa oo markaasi aan u cuntami karin sida uu sheegayo dadka ka soo jeeda gobolada dhexe madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud maamulka ahlu sunnah wal jamaa iyo qolooyinkan damac uu wado oo hadda ku sugan cadaado waxaan rabaa inaan u soo jeediyo madaxweyne Xasan Sheekh in aan halkaan uga soo jeediyo hadda ka horna waan u soo jeediyay hagardaamada iyo gacan bidixaynta iyo xaqdarrada uu kula dhaqmayo ahlu sunnah wal jamaa waxaan leeyahay madaxweyne waxa tahay ummadii madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed cadaalad ugu sameeyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ku dhihi lahaa waxa weeye geel qoorqabad kuma biyo cabee faragelinta iyo arrimaha aad ka dhaxwado maamul samaynta gobolada dhexe waxaan leeyahay ka waanto waxaan halkaan rabaa inaan uga soo jeediyo hambalyo iyo bogaadin iyo ku sugnaanshaha ay dib u soo hanteen ahlu sunnah wal jamaa magaalada Dhuusamareeb waxaan leeyahay hambalyo baaqa uu soo jeediyay qaa'idul umma macallin Maxamuud Sheekh Xasan oo hogaansama iskuguna yeera gogosha madasha iskugu dhiga ma inaad maanta tiraadeen waxana laga dhiga waxa ka muhiimsan inaad adinku waxaad heli kartiin aad adinku maamulka iyo aad qorshihiisa iyo maamul samaynta gobolada dhexe aad adinku ka noqoto wuxuu musuqmaasuq yahay siyaad uga maarsataa micnahu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogowna maqal qaybtan dooda ee barnaamijka ayaan u gudageli doonaa aad buu u mahadsan yahay maxamed xuseen owliyo sidaa daraadeed haddaba dhegeysta su-aalaha barnaamijka galabta waxay ku saabsan yihiin sheekadii musuqmaasuqa ee barnaamijka ay bixayday waxaa lagu weydiin doonaa su-aalo sheekada ku aadan waxa ay ku saabsaneed sheekadu musuqmaasuq ayay ku saabsaneed waa sax laakiin maxay ka ahayd maxaa sidaa kasii ahaa su-aalo noocaas oo kale ah haddii aad ka jawaabto su-aalaha si saxan oo aad la socota dhegeysiga sheekada waxaad heli doontaa abaalmarin lacageed oo ay kugu tala gashay hay-adda markhaati ee barnaamijkan markaa
inta badan dhiirigelisa idaacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan farsamadu waa cabdilcasiis daare cali sow waxaa barnaamijka la socodsiinaya anigoo cabdilcasiis cabdulaahi maxamed aruyali dhegeyste faa'iideyso qadadkuna way furan yihiin mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ehlo haddaba dhegeystayaashu waxay naga soo wici karaan 64 25 55 soo qaba gacanka riix 6 riix 4 riix 2 riix 5 riix 5 riix 5 kale haddii aad moobeel wadatana soo qabsa moobeelka wac 64 25 55 wax furaa oo laga hormarinayo ma jiraan qadadku way furan yihiin ayuu musuqmaasuq yahay ninkii maamula hantida malkooyinka horumarkiyo maara qadadka taleefanada iyo dhegeystayaasha ayaan jeclaha markana fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeya ee qadka ku jira ayaan jaanis siinayaa halow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaal marka hore magacaaga walaal waa saare macalin maxamed degmada yaaqshii joogta zaara barnaamijka ma la socotay si hagaagsan oo la socday haye waa la socday sheekadu waxay ku saabsaneed in bulshada lacag laga aruuriyo oo la yidhaahdo wadooyinkan yaa la dhisaa ka dambana carro qashina loogu soo shubo haye marka ma wanaagsana dhiila in dadka shacabka inta lacag laga aruuriyo la yidhaahdo wadooyinkaa laydinka qurxinayaa oo carro madoobaada loogu soo shubo oo qashin ah oo markii roob da-aba gurigii hortiisa ay noqonayso qashin arrintaas maxay noqonaysaa marka waa maasuq mana ahan wax wanaagsan waa tahay saaro waa mahadsan tahay marsataan micnuu haydin dhacee ninkii moogowna maqal ninkii moogowna maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ehloogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ehloogu dhaco qadadka taleefanada iyo dhegeystayaasha ayaan weli bartan kaga jirnaa qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclaha inaan fursad siiyo barnaamij uga qayb qaato halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal marka hore magacaaga magacaygu waa xamdi xasan oo joogta degmada kaalaan xamdi raadiya iska fogeey amba iska bakti soo dhawow waan dhabaha barnaamijka wuxuu ka hadlaya in bulshada lacagta laga aruuriyo kadibna loo dhaho in waxaa lagugu dhisaa bulshada la dhaho laamiyada iyo jidadkan igula dhisaa kadibna aan wax loo dhisin oo jidka loogu daadiyo care iyo qashin wax lamid ah marka barnaamijkaasoo kale haddii ay dhacdo muxuu noqonayaa sheeko noocaas oo kale ah barnaamijkaasoo kale hadday dhacdo waa musuq maasuq mana fiicno sidee looga hortegi karaa marka guud ahaan musuq maasuq waxaa looga hortegi karaa in dawladda ay ka soo gaarto dawlad fiican la helo waa tahay waa maasan tahay dhanka su-aalaha waa ka jawaabtay hallo mahuraanayo wadaha ehloogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala maroon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ehloogu dhaco
qadka xiga dhageystaha ku jira ayaan fursad siinayaa halow galab wanaagsan wacan ramadaan kariim walaal magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso magacaygu waa nafsi cismaan maxamuud degmada yaqshirta aniso barnaamijka ma la socotay in badan waa la socday barnaamijka maanta qoraa dadka xeeheed dadkooda in cid loogu shuba xeeheed waxaa tacalum samaaswa marka dowladda la iskaga dhigo ay marka arrin noocaas oo kale ay dhacdo maxay noqonaysaa musuqmaasuqa la dhihi karaa guud ahaan musuqmaasuqa sidee looga hortegi karaa marka waxaa laga hortegi karaa dowladda inay daacad noqoto oo shacabkana iyagana dowladda ay taageeraan waata waa mahadsan tahay wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal wuxuu musuqmaasuq yahay si aad uga maarsataan micnuhu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban dhegeystayaasha waxaynu ka codsanaynaa marka su-aalaha la weydiiyo ay ka jawaabaan kadib inaysan qad ka bixin si teleefanada aan u kala qorano qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaana fursad siinayaa halow salaamu calaykum وعليكم السلام عبد العزيز سعودية دمان بعض بنادر قلب ونكسر رمضان الكريم ramadaan kariim walaal magacaaga iyo deegaanka naga soo wacayso magacaygu waa maariya axmed waxaan joogaa xaafadda suuq walaa degmada yaaqshiid maariya barnaamijka ma la socotay in badan haye in barnaamijka wuxuu ka hadlaya in dadka bulshada lacag laga aruuray kadibna cara jaay aan lahayn loogu shubo qaarna lagu shubo qaarna cara aan carada loogu shubo wuxuu ka hadlaya musuqmaasuqa haye marka arrinta noocaas oo kale maxay noqonaysaa arrinta noocaas waxay noqonaysaa musuqmaasuq waxaan laga hortegi karaa dhammaan shacabka oo gacanta isqabsado dadkan dhammaan dowladda inay cadaalad ku dhaqanto waa mahadsan tahay na maqal ninkii moogow na maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ex loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ex loogu dhaco qadka xiga dhegeystaha ku jira ayaan jeclahay inaan fursad siiyo halow salaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhow walaal magacaaga iyo marka hore deegaankaad naga soo wacayso casho xasan ismaaciil degmada sonikey magacaaga ku soo celi casho caasho haye caasho ma fiican tahay haye magacaaga caasho maxaa lagu daraa casho macalin caasho macalin intee naga soo wacaysaa sonikey sonikey degmadee jaamacada haye soo dhowow see lagu yahay deegaanka sonikey waa la fiican yahay haddii aad barnaamijka la socotay haddii bal jawaabaha musuqmaasuqa hay sheekada maxay ku saabsaneed ya sheekada maxay ku saabsan dadka oo kan lacagta laga aruuriyo been loo sheego wadooyinka kaldhahay oo waa isaa la dhaho haddana oo la dhaho oo lacagta laga aruuriyo okay marka arrimahaas maxay noqonayaan ya dowladda inay ka hortagto dowlad fiican ay noqoto waa taa waa mahadsantaha waan kaaga mahad celinaynaa fikirkaaga iyo sida barnaamijka soo qayb gashay ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal mas-uuliyadiyo xilkaasi kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban kana mahuraanayo wadaha ex loogu dhaco ayuu musuqmaasuq yahay
قد كحجر جستها كجرا يا فرصة سينا يا هلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعاق ولا اللي يديجن كان تقصوا عيسو؟ ولا المقعي وعبد القادر زاهر عبد الشريف الجواد من ورث الله بدأ قبل كبرادر. عبد القادر برامج كلا سعتي. عادي ني والله بعد هذا برامج وضبط انت العكس اللي بقول اللي كانت كذا من الوسط بين برامج حق ما صابته وحلوية هذا مرتي جبت لسمين إنه وحير أو الجبل أو كذب لكنه وحري وحلو حدوت اللي ماشي صور رأي بحبلايه مش مقرب. هاي مركا عبد القادر عن مسؤولية الآخر واللي بوجينا قفكنا نقص تموعي مركا waxa lagu horjeedo qofka mas'uulka ka ilaahay inuu ka baqo talabaadna waxa lagu dadka inta qamaas qabsan ruuxana waxna faacay ma ahane amba wax fiican la siiyo wax fiican baa naga qaadeen amba waxa naga dhaaf labada dadka madalkan dadka go'aanka qaataan ila taani ugu dambeyn sidee loo gudbi karaa Abdul Qaadir musuqmaasuq oo dhan wallahi waxa lagu jeedo dadka in ilaahay ka baqo qofka ilaahay ka baqo waxa lagu gudbi karaa mugta haye ummadan waxa leeyahay qof marka wax loo dooran qof wanaagsan ilaahay ka baqay laakiin taas ila laakiin wax kale lagu gudbi karo hal weerarta ma arkaani وما استطيع موجو نمقل منكي موجو نمقل مسؤوليتي وحلقة سكالي لما مرو بالشغل وكلام رون مني ووحب الله بقبن كان مهرانا يو وضها إحلو بدعو dhegeystayaasha dhanka fariimaha assalaamu calaykum magacaygu waa maymuun maxamed cali waxaan ka mid ahay dhegeystayaasha barnaamijka anigu waxay la tahay in musuqmaasuqu uu yahay wax xun waxaana aaminsanahay in looga hortagi karo guud ahaan musuqmaasuq in la iskaashado sheekaduna waxay ku saabsanayd in dadka lacag laga qaado oo sida aysan rabin wax loogu qabto waa maasantahay aynu leenahay السلام عليكم magacaygu waa Faaduma Ilyas Cali waxaan ku suganahay degmada Hodan musuqmaasuqa waxa looga hadlayay galabta ay leedahay inta badan ay dhacaan in dadka lacag laga qaado oo adeeg aan loo qabanin ayadoo carro wasaq loogu shubay jidadkii burbursanaa ee leeyid waa loo dhisayaa eedaasna waxay qaadanayaan ay leedahay mas'uuliyadda ninka degmooyinka waana musuqmaasuq wax xun ee laga foojignaado sheekaduna inta ay ku saabsaneed waa maasan tahay waan kaga mahadcelinaa sida aad barnaamijka Faaduma Ilyas nagala qayb gashay assalaamu calaykum magacaygu waa Muqtaar Liibaan Cali waxaan anigu ku suganahay uu leeyahay Shangaani musuqmaasuqa waxun ee haleyska dhaaf halka ayuu ka gudbi waa maadsan yahay guud ahaan dhageystayaasha dhanka fariimaha iyo kuwa caadi noo soo wacay tooskaba waan uga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dhanka farsamada Cabdulcasiis Daar Cali Soo tabinta Cabdulcasiis Cabdullaahi Maxamed Riyali hay'adda marqaati tabinta idaacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho baadii barnaamijku isku duuban oo idin leh nabad galiyo مسؤوليتي وحلقة سكالي لما مرو بالشغل وكلام رون مني ووحب الله بقبن كان مهو